maalinkaasi maxkamadda uu ka soo muuqday ilaa maalinkii ay dhimatay hooyadii Luul Sheekh Cabdicasiis ilaa maalinkii shalay ee la aasayay hooyadii wiilkaasi niyad jab xooggan ayaa ka muuqday caruurta kale lamid ma uusan ahayn oo keligiis ayaa wax ka dareemaysaa in wajigiisa ay saaran tahay murug Allah u gargaara caruurta ay ka dhimatay walaashii Luul Sheekh Cabdicasiis sidoo kale waxyaabaha la yaab kale ee qabrigaasi lagu arko waxaa ka mid ah in Luul Sheekh Cabdicasiis gabdho la dhashay ay ka tagi waayeen qabriga oo ay ku dul ooyeen oo laga furfuri waay in meesha laga soo wado taasi waxay ka tarjumaysaa jaceylkii uu qadeen walaashood sidoo kale waxaan ugu mahadcelinayaa dadweynaha aadka u badan ee muuqaalada aan ka sameynay walaasheen Luul Sheekh Cabdicasiis aan cadaalad ugu raadinaynay meelaha sare gaarsiiyay haddii la garan ahaan lahayd idii sheegaray ahaan lahayd waxaan leenahay waad ku mahadsantihiin kun iyo kow jeer sida wanaagsan ee aad isugu duubnaateen oo aan u raadinay cadaaladda walaasheen shalay ayay ahayd markii la aasay Allah u naxariistay walaasheen gabadhii miskiinta ahayd ee 6 caruur korinaysay waa Luul Sheekh Cabdicasiis maalin jimco ah oo kamid ah maalmaha fadliga badan ayaa la aasay balse maxaa lagu arkay qabrigii lagu aasay gabadha walaasheen ee Luul Sheekh Cabdicasiis mucjisooyin kala duwan ayaa lagu arkay qabrigaasi ee daawada ila joog oo muuqaalkan meel sare gaarsiiyay waan ku ammaanayaa garsoorka Soomaaliya oo run ahaantii sameeyay wax aad iyo aad u wanaagsan bulshada Soomaaliyeed ay u riyaaqeen kadib markii ninkii Sayid Cali ahaa ee gubay gabadhaasi isla markaana gubashadaasi ay u dhimatay Luul Sheekh Cabdicasiis lagu xukumay dil toogasho shalay maxaa ka dhacay qabriga lagu aasiyay walaasheen Luul Sheekh Cabdicasiis meel la kala istaagay ayaa la waayay dadku aad iyo aad ayay u badnaayeen magaaladii Muqdisho wixii dad joogo dhan ayaa isugu soo baxay halkaas ayaa dabcan waxa kaaga cad in walaasheen ay tahay qof ahlu janno ah in qofka walaalkaagana aad u rajaysid waxa wanaagsan waxay ka mid tahay waxyaabaha wanaagsan ee la amaanay horta aan u duceyno walaasheen Luul Sheekh Cabdicasiis wiilkan yar waa wiilkeeda maalinkii maxkamadda la soo istaajiyay wajigiisa maxaa ka muuqday maalinkii wiilka yar maxkamadda la soo istaajiyay waxaa ka muuqday murug aad iyo aad u weyn wajigiisa aad iyo aad ayuu u dhibsanayay inuu halkaasi taagnaado waxaa la xasuusinayay markastaba geerida hooyadii iyo qaabkay u dhimatay su'aalo ayaa laga weydiinayay isagana aad ayuu u dhibsanayay waa ilmo yar oo dabcan awood badan aan lahayn haddana ninkii gubay hooyadii oo halkaa fadhiyo uusan waxba samayn karin maalinkaasi maxkamadda uu ka soo muuqday ilaa maalinkii ay dhimatay hooyadii Luul Sheekh Cabdicasiis ilaa maalinkii shalay ee la aasayay hooyadii wiilkaasi niyad jab xooggan ayaa ka muuqday caruurta kale lamid ma uusan ahayn oo keligiis ayaa wax ka dareemaysaa in wajigiisa ay saaran tahay murug Allah u gargaara caruurta ay ka dhimatay walaashii Luul Sheekh Cabdicasiis sidoo kale waxyaabaha la yaab kale ee qabrigaasi lagu arko waxaa ka mid ah in Luul Sheekh Cabdicasiis gabdho la dhashay ay ka tagi waayeen qabriga oo ay ku dul ooyeen oo laga furfuri waay in meesha laga soo wado taasi waxay ka tarjumaysaa jaceylkii uu qadeen walaashood sidoo kale waxaan ugu mahadcelinayaa dadweynaha aadka u badan ee muuqaalada aan ka sameynay walaasheen Luul Sheekh Cabdicasiis aan cadaalad ugu raadinaynay meelaha sare gaarsiiyay haddii la garan ahaan lahayd idii sheegaray ahaan lahayd waxaan leenahay waad ku mahadsantihiin kun iyo kow jeer sida wanaagsan ee aad isugu duubnaateen oo aan u raadinay cadaaladda walaasheen Luul Sheekh Cabdicasiis aabaha Luul Sheekh Cabdicasiis aad ayuu u faraxsanaa wajigiisana waxa laga akhrisan karay inuu iminka yahay qofka ugu farxadda badan dunida maadaama uu u dagaalamayay inay cadaalad hesho gabadhiisa hadallo laga qoray ayaa jirtay oo ahayd annagu diyo ma qaadano dadka waan iska cafinaa balse sababtaan u cafin waayay gabadheeda ninka dilay waxay ahayd wax kale maahe sida xun ay u dhimatay ayaan ka naxay sidoo kale waxaan diidanahay ayuu dhahay in gabdhaha kale ee Soomaaliyeed sidaas la mid ah loo galo ugu aabahaas wuxuu ka fikiray gabadhiisa oo kaliya meesha ahayn gabdhaha kale ee Soomaaliyeed ayuu ka fikiray runtii
runtii aabaha dhalay walaashan Luul Sheekh Cabdicasiis qalbiga Allah uu qaboojiyo iyo dhammaan dadkii geerida walaashan ay saameysay Luul Sheekh Cabdicasiis daawadayaal aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin sida wanaagsan aad ugu heliseen cadaaladda iyo inay walaashan cadaalad hesho su'aalaha isweydiinta mudan ayaa waxay yihiin miyaa la dili doonaa ninkii ay maxkamaddu ku xukuntay dilka toogasho ee dilay walaashan Luul Sheekh Cabdicasiis waa ninkii Sayid Cali ahaaye abukaatiisa waxa uu ku hanjabay raacfaan ayaan ka qaadanaynaa xukunka lagu xukumay Sayid Cali isagoo markaas sheegaya inay u furan tahay raacfaankaas macquul ma tahay raacfaankaas ay ka qaadanayaan inay sabab u noqoto in dilkii toogasho ee lagu xukumay Sayid Cali uu ka baaqsado waa su'aalaha dadka inta badan ay isweydiinayaan aragti ahaan adigana daawade halka hoose commentiga aragtidaada nagu wadaag waana mahadsantiin saaxiibayaal ilaa iyo dhamaadka muuqaalka haddii aad nala soo gaarteen waxaan idinka codsanayaa daawade haddii aad nagu cusubtahay inaad nagu soo biirto haddii aad hore noola joogtana waxaan ku leeyahay ma doonaysaa in magaalada Nairobi guri aad adiga leedahay oo raqiis ah laga iibiyo shirkadda dhismaha guryaha Oxfam Homes waxay idin heesaa qiimo dhimis aad iyo aad idin xiisa gelin doonta waa shagaashan beri iyo maalintaada dabcan waxay ugu talagaleen in qiimo dhimis ay ku sameeyaan 3 bilood ee iminka soo socota waa maalmo dahabi ah ee kaalay ka faa'iideyso lambarka hoose inagala soo xiriira waa mahadsantihiin ma tahay waalid ku nool qurbaha mashquulka faraha badan ee qurbaha yaala adiga iyo ubadkaaga idinka mashquuliyay barashada quraanka kariimka mar walba walwal ma kugu haya xadiiskii nabigeena nabadgeliye naxariis korkiisa ahaatee ahaa القرآن حجة لك أو عليك maalinta qiyaame quraanka adiga ayuu ku doodaya ama ka doodaya hadaba macadka daaruraxma quraan online waa xalka mushkiladaada waana mid kamid ah dugsiyada faca weyn isla markaana ay ka faa'iideysteen waalidiin badan iyo caruurta ku nool qurbaha ma doonaysaa in magaalada Nairobi guri aad adiga leedahay oo raqiis ah laga iibiyo shirkadda dhismaha guryaha Oxfam Homes waxay idin heesaa qiimo dhimis aad iyo aad idin xiisa gelin doonta waa shagaashan beri iyo maalintaada dabcan waxay ugu talagaleen in qiimo dhimis ay ku sameeyaan 3 bilood ee iminka soo socota waa maalmo dahabi ah ee kaalay ka faa'iideyso lambarka hoose inagala soo xiriira waa mahadsantihiin ma tahay waalid ku nool qurbaha mashquulka faraha badan ee qurbaha yaala adiga iyo ubadkaaga idinka mashquuliyay barashada quraanka kariimka mar walba walwal ma kugu haya xadiiskii nabigeena nabadgeliye naxariis korkiisa ahaatee ahaa